Bismillahi Raxmaani Raxiim. Imtixaankii la qaaday shalay ee labiyo tobanaadka imtixaankii ayaan ka shaqaynaynaa. Imtixaanka waxaan u yeelnay qayb qayb baan u yeelnay. Qaybtani waa 1 ilaa 4 sidaas ayaan insha Allah aan ku dhigan doonaa. Marka waan bilaabayaa casharka ee la soco. Bismillahi Raxmaani Raxiim. Imtixaankii la qaaday shalay ee labiyo tobanaadka su-aasha koowaad waxaa la yidhi which one of the following is a rational number. Irrational number intaanan ka jawaabin su-aasha, irrational number waxaa la dhahaa tirada radicalka ku dhex jirta inaan ka bixin. Marka labaad waa non repeating, ma soo noqoto, tiro soo noqonaysa maaha. Markay decimal tahay, tobanle tahay, ima soo noqoto. Yaa la dhahaa maxayna irrational. Marka eeda haddaan eegno wuu iga baxaya. Ka labaad wuu ii soo noqday. oo maxayna waa rational. Laakiin siida waa maxayna waa irrational. Kama baxso 29 radicalka kama baxo. waad fahantaan oo maleynaya halkan waa real maths private school. insha Allah waxaad ka baran doontaa dhammaan xisaab. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Su'aashani labaad waa exponential expression. Jibaarada halka iga timid baan sheegayaa. 1 waa 3 ku jibaaran 4 baan dhahayaa. Markaan waan simayaa waxaan haystaa waa 3 to the power of 4 over 5 over 3 to the power of 9 over 5 baan dhahayaa. Markaan base waa isku mid, jibaarkan kala jaraya base ka mid baan ka soo qaadanayaa. 3 baan dhahayaa 4 over 5 negative 9 over 5 afar sagaal ka jar waa shan u qabi. Marka waxaan haystaa 3 to the power of negative 1. marka yaa ila mida 1 over 3 oo c marka c ayaa ii soo baxday. Su'aashii saddexaad inta la heysiyaa lagu yidhi which one of the following written baa lidaawo qoran standard form. markaan ka shaqeynayno marka hore inta la heysiyo ma soo qaadanaya. waxaan dhahayaa waa 43 waxaan dhahayaa 43 lagu dhuftay 10 to the power of 8 times 10 to the power of negative 5 baan dhahayaa. markaan sida dhaho iron kala jar 10 to the power of 8 iyo 10 to the power of negative 5 ka jar 8 ka jar waa 3. marka waxaan dhahay intana waxay la siman tahay intan. marka intanan standard form ka sii dhigaya maxaan dhihi waa 4 dhibic marka d way su'aasha. Bismillahi Raxmaani Raxiim. imtixaankeenii ayaan ka shaqeynaynaa su'aashii afraad intan ayaa la siiyey. marka waa system of linear equation. markaan ka shaqeynayno 3 qaab baa jira oo raashiya loo isticmaalo. marka raashi ahaan baan u isticmaalnaa si aan markaaba u garanno. intaanan ka dooran waa inaan intana aad taqaano weji. waxaan dhahayaa marka ugu horeysa kan waxaa la dhahaa maxayna infinite solution baa la dhahaa. waa infinite solution. kanna maxaa la dhahaa waa no solution baa la dhahaa. no solution. kanna maxaa la dhahaa has one solution. markaa su'aalaha markaan ka shaqeynayno aan kusoo noqono ta koowaad a1 over a2 yaa liid intan ay la mid tahay. waxaan dhahnaa waa benwich. bida iyaduna waa benwich. cda iyaduna waa benwich. dda waa ii sax. markaa dday sax ku tahay waa